agaasimaha guud ee komishanka xakamaynta xanuunka HIV/AIDS-ka Soomaaliland Axmed Cabdi Ismaaciil ay weheliyaan isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal Dr. Mustafa Xuseen Aadan iyo mas'uuliyiin ka tirsan komishankaasi ayaa maanta soo kormeer xarunta lagu daryeelo dadka la nool xanuunka HIV/AIDS-ka ee gobolka Awdal. Mas'uuliyiintan ayaa sidoo kale xog wareystay maamulka gacanta ku haya xaruntaasi iyo baahiyaha ay qabaan ay u baahan yihiin in wax laga qabto. Intaa kadib waxaa hadalka qaatay isla markaana u mahadnaqay mas'uuliyiinta gacanta ku haya xarunta lagu daryeelo dadka qaba xanuunka HIV-ga sidoo kalena sheegay inay ka wasaarad ahaan doorkooda ka qaadan doonaan isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal Dr. Mustafa Xuseen Aadan oo wasaaradda iyo komishankuba way wada shaqeeyaan oo shaqo isku mid hal qof labadaba wada dadaalnaa. wasaaradda caafimaadkuna waxay u dadaashaa qofkan xanuunkan qaba u dadaalaysaa idinku waxay u dadaalaysaa sidii bulshada qofkan uu xanuunka ugu ekaan lahaa oo qofku uu dhaafeen tiraduna ay markasta u yaraan lahayd. ruuxaantii anagu marka hore horta qofka dawaan baadhnaa oo meeshii baaritaanka helaysay baan anagu nahay. markaan baaritaanka ku ogaano qofkan xanuunka inuu qabo waxa la sameeyaa taladii la siiyaa oo counseling buu u baahan yahay qofku in taladii la siiyo sidii looga dhaadhicin lahaa qofkan dawadan inay tahay xanuunkan inuu dee wax mataqaanaaye xanuun yahay hawshaas aan kordhino wacyigelintina sidaad wadaan maanta gobolka oo dhan aad soo marteen inaad halka kaga haysaan oo 3 bilood oo mar aad tagtaan dadku markaa waxay ogaanayaan shaqadan ahaynay iyo xanuunkanba inuu de markaa u yahay wax jira. xarunta VCT-du dawaa meel loogu talagalay inay u shaqeyso dadka la nool xanuunkan la yiraahdo HIV/AIDS-ka waxa weeyaan qofku markuu waxa weeyaan xanuunka laga helo oo halka center ka yimaado halka loogu bilaabo baaritaanka laga bilaabo halka qofka marka la baaro danka bacdi loogu sameeyo mataqaana in lagu daweeyo marka qof dadka dawa la siiyaa dawadaasi la nool yihiin. ugu dambeyn waxaa madashaasi hadalka soo gabagabeeyay agaasimaha guud ee komishanka xakamaynta xanuunka HIV/AIDS-ka Soomaaliland Axmed Cabdi Ismaaciil. xilliyeedana waxa weeyaan cilmiga caafimaadku meel fog oo wanaagsan uu ka gaaray haday tahay AIDS haday tahay xanuun kale inta qofka bini'aadamkii inuu xaalkiisa la socdo si wax radaacada tahay dawlad la qabay qof wax badan ku tagal uu sameyn karayo taas waa qodobka waxa weeye wasaaradda caafimaadku runtii waa rukniga ugu weyn ee xanuunkan iyo ganacsiga hoos u dhigistiisa qayb ka ah oo kaalintoodii runtii waliba si fiican horta u wada oo maanta dadkii baaraya oo daweynaya oo talana siinaya kullee runtii bini'aadamku markuu wacyiga soo helo iyo go'aanka iyo talada iyo qorshaha keena anagu safarka yagaas iyo qorshaha maamulana soconay waxaba ka dul buuxo oo ka badan intaan ka soo aragnay waxaan adeeg laftigiisa anu maamulana soconayo maamulkii ma dhisan isuduwayaasha iyo shaqaalaha iyaga xafiisay waxaasan ayaan iska dhisanaynay laakiin waxa soo batay waxa weeye in adeeg laftigiisa halkan ka taagan yahay meesha marayo oo casar fiican runtii naga soo baxay kaasana maanta ayaan ku dhiiranahay wax ka qabadkiisa gobolka Awdal waxaan ku amaanaynaa wuxuu kamid yahay gobolada si wanaagsan horta ilaa in qorto ula xaala number badan gacanta ku haya numberka badan wali cabasho shakhsiya kamay soo bixin laakiin duruufaha faquuqa iyo takoorka iyo waxaasi qaranku bay runtii la qabaan waa dadaal dheer maanta la jecel waxay noqon qofka xanuunsanaya inuu xanuunsanaya aanu dareemin ay horta muhiima dad qof u diyaar ma jirto laakiin uu nugleeyahay waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama.